محمد حسين ayaa isaguna waxa uu ahaa dadkii waqtigaasina ka soo waramayay waxa kale maxamed xuseen markii lagu dhawaaqay natiijada maalintaasi ee baarlamaanka lagu dhawaaqay gobolka Maroodi Sheekh natiijada in hadda sugayno waqtigaasi oo xataa muuqaalkoogana ay dadweynahana aynu la wadaagi doono halkan aynu uga sii deyn doono bal habeenka lagu dhawaaqay iyo marxaladdu sida ay ahayd bal jawigii waqtigaasi noo sawir maxamed alxamdulillah aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxay ahayd ku dhawaaqidii doorashadii golaha wakiilada ee sanadkii 2005 telefishinka qaranka laftigiisu waxa waqtigaas waxa ahaa cusaybo in 2005 ama 2005 ayaa telefishinka qaranka la aasaasay oo la bilaabay July la August baa wada galay marka doorashadaasi dadku aad bay ugu dhagtaagayeen una sugayeen natiijadeeda deetana habeenkii soo jeedno aynu dadweynuhu inooga sugayaan in aynu u soo gudbino natiijada ay ku dhawaaqi doonaan commissionku ee gobolka Maroodi Sheekh oo laga sugayo gobolkii ugu dambeeyay ah ee lagu dhawaaqi doono cidii ku guuleysatay ama xubnaha ku guuleystay golaha wakiilada iyo degmada Hargeysa oo iyagana laga sugayo cidii ku guuleysatay golaha deegaanka isla markaasina sidii abiba uu sheegay oo hay'adii buu yiri Somaliland xisbiyada dhan ay isha ku hayaan natiijadaasi dadweynihii u kala codeeyay musharaxiintuna ay si weyn iyaguna isha ugu hayaan dadweynihii kale iyaguna la jecladu ay Somaliland ka haysan iyaga laftigooda sidaas si lamid ah ay u jecel yihiin natiijadaasi kama dambaysta gobol iyo heer degmaba in lagu dhawaaqo markaynu haddaba taariikhda dib u raacno ee waqtigaasi dib waxay ahayd barnaamijyadii iyo wixii telefishinka loogu talagalay ee habeenkaasi dadka loo gudbinayay ama war ha noqoto ayaa gabaabsi noqdo isa soo gabay imkaaniyaadka iyo agabka ama qalabka uu markaa haystayna waxa ahayn qalab ka kooban oo aan maanta ahayn qalabkan digitalka ah ee waxaynu ahayn qalab manual ah oo waxa weeyaan halka maanta digitalka la isticmaalayo ama card la isticmaalayo ama memory la isticmaalayo ama la isticmaalayaba in internet wax lagu soo gudbiyo bariga waxa la isticmaalayay cajadahan VHS ka la yiraahdo ee waaweyn wareega ayaanu isticmaalanay marka waa dareemi kartaa marka aad dadka u gudbinayso muuqaalkii ku dhawaaqida qaabka loogu gudbinayo haddana dadaalkii iyo kartidii iyo effortgii aanu gelinay baan wax kasta ku wadnay sida la sheegay ka muuqatay makada laftigooda warbaahinta iyo aan oranayn inta cisho ee la sugayay ba halka taagnayd subax baan kale telefishinkuna wariyaashiisu ay waqtigaasi ahaayeen deetana waxa la yiri war Maxamed Xuseenow barnaamijyadii way soo gabeeno way barnaamijyadii jadwalka ku qornaayay loogu talagalay in caawa la baahiya ilaa xilliga lagu talagalay ma hayne way dhamaadeen waxa loo baahan yahay dadweynaha in daawanaya inaad wax u gudbiso oo ku sinto waa fikrada tan markiiba hagaag waxaanu sameeynay Sidiq Ismaaciil baa kamid ahaayo Xasan Shukri baan ragiyan ka xasuustaayo rag fara badan baan xasuustaayo in habeenka joogay Axmed Jaamac inuu joogay kala iyo rag kale badan oo Maxamed Aqli kamid adu kulli rag fara badan oo telefishinka joogay ayaa jiray waxa aanu sameeynay studio baan ayaanu alifnay deetana waxaanu dhabarka shaashada dambe dhignay anagoo caalamka isku ekeysiinayna ayaa waxaanu dhignay shaashado shaashadihii baa waxaanu ku xidhnay xarkihii studio-hii localka ahaa ayaa si toos ah markiiba loogu xidhay markiiba waxa dareemaysay in studio caalami uu yahay waana mid isla daqiiqadaas aanu sameeyay daqiiqadaasi aan barnaamijka gelayo deetana waxa live na waan ku jiray live-kii kamaradii live-ka la siiyay studio localka ba la siiyay sidaan ku galay waxa markiiba maskaxdeeda ku soo dhacday on degashaday taariikhii kala duwanaa iyo sooyaalkii taariikheed ee Somaliland ay soo martay ilaa iyo xilligii Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur Ilaahay naxariista guud soo kormaray waxaan ku soo xigsiyay Ilaahay naxariista shanaha ka waraabiye Maxamed Ibrahim aduu saasan u soo wada taariikhii kala dambeysay ilaa iyo mudane Daahir Riyaale Kaahin madaxweynihii hore jamhuuriyadda Somaliland deetana marxaladihii la soo maray ilaa iyo baarlamaankan habeenimada la sugayo
Somaliland,